asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. odayaal kusoo dhawaada daalacan media oo aan idinkugu soo bandhigi doono warar, warbixino, dhacdooyin, sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka. Fadlan daawade saar subscribe, share iyo like ka mid noqo macaamiisha daalacan media. mahadsanidin. daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin dheer oo laga qoray dowladda Turkiga oo soo bandhigtay farsamo lagu saameynayo shidaalka gaaska iyo macdanta ee Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa la sheegay inay xusul duubeyso sidii shidaalka gaaska iyo macdanta Soomaaliya looga baari lahaa lana dhisi lahaa farsamada u fasaxi doonta shirkadaha dowladda iyo kuwa gaaska ee labada dal inay saamiyaan muhiimada tamarta ee dalka Soomaaliya ee istiraatiijiyada leh ee ku yaala geeska Afrika. website-ka la yiraahdo Nordic Monitor oo ay leedahay shabakadda cilmi baarista iyo la socodka ee Nordic Research and Monitoring Network fadhigeedu dhexe ku yaal caasimadda Sweden ee Stockholm ayaa waxay maanta qortay in heshiis isfaham ay dowladda Soomaaliya iyo Turkiga kala saxiixday sanadkii 2016 oo ku aadan iskaashiga buuxa ee arrimaha tamarta iyo macdanta. warbixinta uu daabacay website-ka Nordic Monitor waxaa lagu xusay inay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ansixiyeen heshiiskaasi hal isbuuc kahor markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan soo saaray hadal qoraal ah bishii la soo dhaafay Janaayo 19 oo ku muujiyay in dowladda federaalka Soomaaliya ku casuuntay inay howlgallo baaritaano iyo qodista ceelasha shidaalka ka bilaabaan xeebaha ka baxsan badda Soomaaliya. shabakadu waxay qabtay inay aragtay qoraalka heshiiska isfahamka ee Turkiga iyo Soomaaliya kala saxiixdeen ee isaga kaashanayaan tamarta, taasi oo diiradda lagu saaray mashaariicda saameynta soo saarista iyo sifeynta hydrocarbonka, gaaska dabiiciga, kaydinta, xamuulka, suuqgeynta, qaybinta, cilmiga dhulka ee geolojiyada, injineeriyadda, haamaha kaydadka, haraaga sifeynta shidaalka, dhowrista imkaaniyaadka iyo teknolojiyada la xiriira hydrocarbonka. qodobka waad heshiiskaasi isfahamka ee Soomaaliya iyo Turkiga kala saxiixdeen sanadkii 2016 waxa uu dhigayay in la asaaso iskaashi wax ku ool ah iyo in la dejiyo qodobada kalsoonida ee iskaashiga labada dhinaca tamarta iyo macdinta oo ay la socdaan horumarinta iyo dhiirigelinta qaybaha batroolka, gaaska, korontada, macdinta, haraaga iyo weliba petrochemistry-ga. madaxweynaha Turkiga waxa uu bishii hore sheegay inay codsi ka heleen dowladda Soomaaliya ku aadan in Turkiga ay yimaadaan si ay baaritaan shidaal ugu bilaabaan badaha Soomaaliya, inkastoo ay dowladda federaalka markii dambe ay beenisay codsi noocaas ah inuu gudbisay dowladda Turkiga. madaxweyne Erdogan waxa hadalkaasi u sheegay suxufiyiin la saarnay diyaaradda madaxtooyada Turkiga kadib markii uu ka soo laabtay shirweynihii caalamiga ee arrimaha Liibiya ee lagu qabtay caasimadda dalka Jarmalka ee Berlin. hadalka Erdogan ayaa soo baxay kadib markii ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyeen sharciga cusub ee batroolka Soomaaliya, taasi ujeedadiisu tahay in la bixiyo qaab sharciyeedka taageero ka geysan doona danaha maalgashiga ee saameynta shirkadaha shidaalka ee waaweyn. xisbiga hay'adda dalkaas Turkiga ee loo yaqaan xisbiga cadaaladda iyo horumarka AK Party ee madaxweyne Erdogan hogaamiyay waxay si degdeg ah u ansixiyeen baarlamaanka dalkaas heshiiska iskaashiga tamarta ee Soomaaliya iyo Turkiga. shabakadda Nordic Monitor waxay kaloo sheegtay in tallaabooyinka horumarka ee dhowaanaha la arkayay iyo qoraalka heshiiska isfahamka waxay sheegaysaa sida Turkiga u qorsheynayaan ama u qorsheeyay inay la jaanqaadaan codsiga Soomaaliya. heshiiska isfahamka Turkiga iyo Soomaaliya waxaa bishii Juun 3 sanadkii 2016 lagu saxiixay magaalada Muqdisho xilli madaxweyne Erdogan booqasho ku joogay Soomaaliya. heshiiskaas waxaa qalin ku dugay wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga ee dowladda ku meel gaarka Cabdisalaam Hadlayo Cumar iyo dhigis Turkiga Mevlut Cavusoglu. heshiiskaas ku koobnaa 12 qodob waxa uu dhigayay in wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dabiiciga Soomaaliya inay dhammaystiri doonaan heshiiskaasi oo muddo howleedkiisa ku ekaan doono muddo 5 sano ah oo dib loo cusboonaysiin karo. waa sida website-kaas qoray. heshiiska waxaa kale oo qeexaya haddii uu hal dhinac go'aansaday inuu heshiiskaas ka baxo in loo baahan yahay inuu dhinaca kale ku wargeliyo ugu yaraan 6 bilood kahor go'aanka kama dambaysta ee uu kaga baxayo heshiiskaasi. odayaal waxaa intaas inooga dhow warbixintii dheeryada aynu ka soo xiganay shabakadda Nordic Monitor ee dalka Sweden oo ay kaga hadashay
kuna soo bandhigtay dukumentiyada heshiiska isfahamka ee ay Soomaaliya iyo Turkiga kala saxiixdeen sanadkii 2016 ee ku aadan iskaashiga dhinaca batroolka, gaaska iyo macdinta ku dhex eegata Soomaaliya. ciidamada ilaalada xeebaha dalkaasi waxay waabarigii hore ee saakayta soo badbaadiyeen 9 qof oo ku jiro mid ka mid ah nin u dhashay dalkaasi Afghanistan, kuwaasi oo doonidii ay la socdeen ay ku xayirantay jamalo ama dhagxaan ku dhex yaala badda dhexdeeda. ila dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in wakaalada wararka Turkiga Anadolu News Agency ay doonidaasi ay la sheegay in loo dirayo dad ka soo daabulo dadkaasi ku dhex jiro gudaha doonidaasi. waxaa la sheegay in 9 qof ee laga soo badbaadiyay 8 kamid ah yihiin Soomaali. muhaajiriinta la soo badbaadiyay waxa ay ka talaabayeen in ay doonidaasi kaga gudbaan badda Jislaan ee dalkaasi Turkiga si ay u gaaraan galbeedka dalalka Orobo. mujaahidiinta Soomaalida ah iyo ninka u dhashay dalka Afghanistan ee la soo badbaadiyay waxaa loo gudbiyay xafiiska waaxda socdaalka ee dalkaasi. wadanka Turkiga waxa uu muhiim u yahay tahriibayaal fara badan inay ka gudbaan dalalkaasi Orobo, kuwaasi oo dhibaatooyin ay dalalkooda kaga cararayaan doonayaan in nolol cusub ay ka bilaabaan Orobo.